waxaan idin leeyahay farxad ku waara cibaado suuban ku waara ilaahay jannadiisa idinkugu bashaareeyo uxibbukum fillah waan idin jeclahay oo waliba ilaahay dartiisa ayaan idin jeclahay diinteena ciyaar ma aha diinteena kaftan ma aha waxay ka doonaysaa cilmi waxay ka doonaysaa amal waxay ka doonaysaa sabr waxay ka doonaysaa u hoggaansamida ilaahay u hoggaansamaysid shaytaankana aad la dagaalamaysid وجزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سودوا walaalkay iyo walaashayda qaaliga ah barnaamijkeeni baa ka ada barook u dhaqan diinta maanta waxaan uga hadlaynaa barnaamijkeena walaalayaal sida dugsoontihiin diinteena islaamka ilaahi jalla wa ala mar walba wuxuu naga doonayaa inaan wadadiisa ku taagnaana ilaahi jalla wa ala ma jeclo in lagu caasiyo إلهي جل وعلا مجعله إن لو حد قدبا أمرديسة إلهي جل وعلا مجعله إن قفك بن آدم كأه والله جل وعلا أوامرتي سديده محايا لي إلهي وحوليه هي أود أن لسوكو بكرين سيدا سيدرتد دينتين إسلامك وحي كم التحي وحي علىها كوفو ذو ذينيو إن تكونوا لاتا قلبي ونكسن فرحد له دغنانشن له اوغولانشن له تواضع له iyo isudulayn aad isku dulaynayso sida u badbaadi lahayd lianna nafsadaada weeyaan wuxuu Allah jalla wa ala abuuray nafsadaada weeyaan ilaahi jalla wa ala wuxuu amrayo inaad ka soo baxda awaamirta ilaahi sidaas darteed kulankeena maanta insha Allah biidnillahi alkariim waxaan ku soo qaadan doonaa walaalayaal salaada subax fadliga ay leedahay iyo salaada casar fadliga ay leedahay waan ogsoonahay walaashaydii waa tukataa taasina waajib ayay kugu tahay waan ogsoonahay walaalkaygiyo waa tukataa taasina waajib ayay nagu tahay oo kugu tahay laakiin salaadaha aad tukatid fadligooda ma u fiirsataa ma ka fikirtaa ma weynaysaa sidaas darteed walaalayaal waxaa idiin sheegayaa marka nabigeena sallallahu alayhi wa sallam axaadiis badan ayuu ku sheegay fadliga salaada subax iyo fadliga salaada casar لأجل ذلك مركب waxaan ku soo koobayaa laba xadiis maadaama diinteena san hore u soo sheegi jiray ay nagu waajib yeelayso cilmi inaan baranaa ku dhaqanaa jeclaana sidaas darteed maanta waxaan qaadanaynaa xadiisyadaas oo ka hadlaya fadliga ay leeyihiin salaada casar iyo salaada subax waxaad ogsoontiin walaalayaal salaada subax waxay ka mid tahay salaada ku adag munaafiqiinta dadka ilaahi jalla wa ala aanan jeclayn dadka diinta wahsada way ku adag tahay salaada subax iyo salaada cishahaba laakiin fadliga salaada subax ay leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man salla al-bardayni dakhala al-janna qofkii tukada salaadaha qabowyada ah ulama rabbaniyiin waxay yiraahdaan salaadaha qabowga ama nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu la jeedaa waxay tahay wa salaatu subh salaada subax iyo salaatu al-asr qofkii tukada oo ikhlaas iyo Allah inuu rajo ka rajaynayo jannadiisa ku tukada ilaahi jalla wa ala janna ayuu geynaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegaya salaada subax sunnada ka horeysa inay ka khayr badan tahay addunya wa ma fiha adduunka iyo waxa ku sugan inay ka khayr badan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegaya qofka ku soo tukada salaada subax oo masjid ku soo tukada ama lokaal ku soo tukada ama meel ku soo tukada wa huwa fi dhimmatillah إلهي جل وعلا ذمديسا أيو كجرا صلاة عصر وحير هذا علماء الربانيين مركي قرآن كإنه فصيريان إلهي أيا كل أرتأي إليه ولا عصر إن الإنسان لفي خسر إلهي وحو كل أرتني فضل وين عظم وين أي إليه كفى إيديس ولا شيء دي كفى إيديس ولا الكيجيو لبضان صلاة فضل جوذا يكود ذلك كوذا إيوه كتدبرتان كودا مركا تكنيس إن كتدبرتا وإلهي أكر جيسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة ولكن عبد الغني وخيرك وناقة إذن لجعل وحن إذن ليهي فرحت كوارا عبادة صوبا كوارا إلهي جندي سايدكو بشاريو أحبكم في الله وأن إذن جعل الله ووليب إلهي درت سايدين جعل الله دينتين عيار معها diinteena kaftan ma aha waxay ka doonaysaa cilmi waxay ka doonaysaa amal waxay ka doonaysaa sabr waxay ka doonaysaa u hoggaansamida ilaahay u hoggaansamaysid
shaytaankana aad la dagaalamaysid. وجزاكم الله خيرا.